maxaa uu salka ku hayaa khilaafka u dhexeeya Puntland iyo federaalka? Puntland waxay doonaysaa in loola dhaqmo sidii dal madax bannaan iyadoo maamul goboleed ah. maxaa diiday in Puntland daacad u noqoto sida maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug oo si wanaagsan ula shaqeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya? Maleesoran kara hadallada ka soo yeera madaxweyne Dani isaga iyo wasiiradiisa kuwa baalmarsan nidaamka federalismka ay Soomaaliya qaadatay sida ereyada ah dowladda Puntland iyo dalka Puntland. bishii July 10keedii 2019 ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre booqday daanta waqooyi ee Gaalkacyo maadaama safaro la xiriira dhismaha maamulka Galmudug uu u joogay dhinaca koonfureed ee magaalada Gaalkacyo. Khayre ayaa ujeedkiisu kaliya ahaa inuu la kulmo shacabka waqooyiga Gaalkacyo maadaama ay magaaladu hal magaalo tahay isagoona howlo shaqo u jooga dhinaca koonfureed ee magaalada oo kala qaybsan. waxaa khasab noqotay inuu la kulmo labada shacab ee Puntland iyo Galmudug. Puntland ayaa ka wareyshay kulanka shacabka iyo ra'iisul wasaaraha waxayna soo direen 3 wasiir iyagoo ka codsaday in ra'iisul wasaaraha lagu soo dhaweeyo jadwal aysan ku jirin la kulanka shacabka, waxaana taa beddelkeeda ku soo qoreen la kulanka ra'iisul wasaaraha iyo isimada. balse Khayre waa uu ku gacan sayray waxa uu sheegay inuu qorshaha safarkiisu ku jirin Puntland uuna arrimo shaqo u joogo Galmudug, balse la kulanka shacabka ay tahay mid aan laga fursan karin. ra'iisul wasaare Khayre waxa uu la kulmay shacabka reer Gaalkacyo ee dhinaca waqooyi ee Puntland waxaana garoonka kubadda cagta Cawaale kula kulmay boqolaal reer Gaalkacyo ah oo si maamuus leh u soo dhaweeyay waxaana shacabkii dhalinyarada Gaalkacyo u ballan qaaday inuu dhameystiri doono garoonka kubadda cagta Cawaale Stadium miisu ka dhinay $150,000. Gaalkacyo waa idin salaamay. inaan idinkugu imaado garoonkii Maxamed Cawaale Liibaan oo ah halyeygii calanka Soomaaliyeed. waa maalin taariikhi ah, waa ku mahadsantiin shacabka reer Gaalkacyo. waxaan uga mahad celinayaa soo dhoweynta diiran ay nagu soo dhoweeyeen aniga iyo wafdigayga. waxaan leeyahay sharaf iyo karaamo ayaad mudantiin. xalayto ayuu igu yidhi madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo, mar haddii aad Puntland timid waxaad u timid shacabkii ugu dawlad jeclaa dalka Soomaaliya, waxaad ku jirtaa gacan wanaagsan. laguma hayn karo Soomaali kala qaybsan, laguma hayn karo Soomaali xuduudyo kala leh. sababtoo ah waxay nooga tageen taariikha in quluubta shacabka Soomaaliyeed marna aanay xuduud kala yeelan karin. ammaanadii la idin dhiibay, Soomaalinimadii, dhallinyaranimadii, sharaftii, xooggii, caqligii, cilmigii idinka haayo. diyaar ma u tihiin Soomaaliya midaysan, Soomaaliya sharaf leh, Soomaaliya xooggan, Soomaaliya soo ceshata meeshii ay dunida uga jirtay. gobonnimada Gaalkacyo hormuud aheeda hormuudka ma qaadanaysaan? qabyaaladda ma ku beddelaynaa qarannimo? musuqmaasuqa ma ku beddelaynaa iimaan iyo sharaf? reer Gaalkacyo hormuud ma u noqonayaan? waxaan idinkugu imid inaan idinla wadaago qalbigayga sida aan raalli idinkaga ah. kadib waxaa soo ifbaxay muranka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Puntland oo horey u ahayd mid qarsoon. shir jaraa'id oo si wada jir u qabteen wasiiradii la diray ayaa ay ku sheegay in ra'iisul wasaare Khayre ku xadgudbay Puntland oo si amar la'aan ah ku soo galay dhulkeeda. cajab. haddaba su'aasha dad badan oo Soomaali isweydiinayeen ayaa ah Khayre ma xuduud kale ayuu ku tallaabay? soo ma tegin dhul Soomaaliyeed oo isagu ra'iisul wasaare ka yahay. Khayre dhag jalo kuma siin waxaanu ka dhabeeyay ballanqaadkii uu shacabka reer Gaalkacyo u ballanqaaday dhamaystirka garoonka. waxa uu isla maalintii xigtay ku taageeray garoonka lacag dhan $222,000. arrinta ayaa aad u danqisay Puntland waqti ku ahayd booqashadii ra'iisul wasaaraha ee Gaalkacyo. dad badan oo reer Puntland ah ayaa ka soo horjeestay ficilka ra'iisul wasaare Khayre Puntland looga hor istaagay. dadkan ayaa fikradahooda ku muujiyay qaab qoraal ah iyo muuqaal ahba iyo mid saxaafadeedba, kaasoo dastuurka Puntland u oggolaanaya qodobkiisa 16aad ee dastuurka fikradda hadalka. taa beddelkeeda Puntland waxay xirxirtay dadkii ka soo horjeestay ficilka ra'iisul wasaare Khayre looga hor istaagay Gaalkacyo.
waxaana xabsiga loo taxaabay nabadoon cabdulaahi maxamed jibriil oo muuqaal u soo dhigay baraha bulshada ku taageeray socdaalkii khayre sidoo kalena waxaa xabsiga loo taxaabay wariyihii ka duubay muuqaalka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo ka hadlayay xaflad lagu tahfurayay shirkad duulimaad ayaa ka digay waxa uu ugu yeeray in si khaldan loo adeegsado dhalinyarada taas oo ula jeeday in dowladda federaalku ay marin habaabinayso dhalinyarada Puntland waxaana si xoogaysanayay khilaafka maamulka Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan aad ugu digayaa dadka danaynaya inay bulshadan burburiyaan inay hoggaankeeda wiiqaan inay dadka dhalinyarada ah ay ku kiciyaan waxaan munaasab ahayn in aan hoggaan uu fiican yahay Puntland baa daliil u ah waxaan qirayaa ninkii ku heesay Puntland ku dayo inuu wax wanaagsan sameeyay inay nagu daydaan bay munaasab ah ma aha in dadka la hareer mariyo mana aha dadka in aan waxaan jirin dowladda federaalka Soomaaliya oo ka duuleysa adeeg gaarsiinta dalka heer federaal iyo mid maamul goboleedba waxaa mar labaad lacag gaaraysa $150,000 ku taageertay dhismaha iyo dayactirka wadada halbowlaha u ah magaala ganacsiyeedka Puntland ee Boosaaso waxaana lacagtaasi si toos ah loogu shubay akoonka guddiga dhismaha wadadaas arintaas ayaa Puntland mar labaad ka soo horjeesatay waxaana xabsiga loo taxaabay guddiga dhismaha oo kala ah nabadoon Maxamed Ibraahim Xaaji Faarax gudoomiyaha Amal Banki Boosaaso Maxamed Faahiye iyo injineer Marfo iyo macallin Axmed oo galinkii dambe xabsiga loo taxaabay isagoo safar dibadda ah ka waxa xariga macalinka iyo guddiga si aad uga soo horjeestay shacabka Puntland gaar ahaan gobolka Bari waxaana saaka mudaharaadyo looga soo horjeedo xariga guddiga laguna taageerayo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka dhaceen magaalada Carmo ee gobolka Bari waxayna shacabku wateen sawirada madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya baaqiyihiisa Puntland u soo jeediyeen oo ka codsanayaan inuu sii daayo ayuu iska inatiray Siciid Deni intaas kadibna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa warqad furan oo si toos ah ugu socota maamulka Puntland ayaa ugu baaqay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni inuu si shuruud la'aan ah ku soo daayo mas'uuliyiinta guddiga dhismaha wadada Boosaaso balse taa beddelkeeda xukuumadda Mr Deni oo sii wadata iskandhatirka baaqyada isimada dhalinyarada iyo dowladda dhexeba waxay ku adkaysatay in xabsiga ay ku hayaan mas'uuliyiintaas xilaalyaha Puntland oo hadlay ayaa sheegay in sharciga la tiigsan doono dadkaas oo aan amarka farmaajo lagu sii deyn karin iyo cid kaleba cid soo fargelin karta ilaa kiiska qofka ama lagu waayo ama lagu helo cid soo fargelin karta oo maxaan ku yiraahdaa tala ka bixin karta oo aanan hay'adaha sharciga ma jirto shakhsiga waa la soo eedeyntii shakhsiyaadkaas labada meelood ku xiranna insha Allah waxaan rabnaa inaan miisaanka sharciga ah inaan saarno haddii eedaha laga soo gudbiyay ay noqdaan maangal sharciga kaga xadgudbeen waxa ku dhici doonta ciqaabta sharcigu u ogol yahay haweenka farmaajo sii deyn karin ra'iisul wasaaraha sii deyn karin sharci baa soo xiray sharci baana sii deynaya sidoo kale shalay mar uu ka hadlayay munaasabad barnaamij waxbarasho loogu daahfurayay ayuu ka soo horjeestay guddigii wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay dowladda federaalka magacowday waxaana sheegay in xilkaasna aysan u qalmin mas'uuliyiinta loo magacaabay waxaana isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu digay mar labaad dad uu ku sheegay inay ka shaqeynayaan duminta Puntland oo adeegsanaya aaladda Facebook ciladan soo baxday Facebook la yiraahdo qof walba isaga ka dhawaaqayo runtii waa dhibaato soo korodhay oo aan xal lahayn qof wuxuu garanayn hadduu ka hadlo oo adag tahay si loola hadlo oo loogu jawaabo waxaan aad uga xumahay dadka ka shaqeynaya inay systemka Puntland dumiyaan inay khalad weyn inay ku jiraan inay dareemaan waa dhici karta qaarkood niyad samid inay jirto waxaan rajaynayaa sharcigu dadkoo dhan ku weeyay sharcigu cidii ku xadgudubto uu qabanaya haddaan sharciga aan ka leexano dalkan ma jiraayo khilaafka ka jira gobollada waqooyi ee Soomaaliya ee Puntland iyo Soomaaliland ba laba maamul ay sidoo u kala sheeganayaan in khilaaf dhaco ma inkiri karno wax jira xaqiiqi jirta laakiin wixii iskhilaafa ayay tahay inay wada hadlaan xalka gaaraan waan u baaqayaa in xal waara oo lagu wada kalsoon in laga gaaro inay muhiim tahay oo qolow ay sameeyaan ku lagaan laakiin waxa khalad in dowladda dhexe federaalka dadaan xalka qayb ka ahayn ama qayb ka noqon karin inay tiraahdo xalliya
ama qaarkood lagu tuhmaayo hurgumada taalla inay qayb ka ahaayeen waa nasiib darro arrintaas waxay u baahan tahay in dib loo eego hadalkaas kadibna waxaa soo baxday dhalinyaro reer Puntland ah oo sheegaysa in madaxweyne Dani iyo xukuumaddiisu u baaxsanayso boostiyo ay Facebook soo dhigeen kuwaas oo ay ku taageereen xukuumadda dhexe ee Soomaaliya waxaana dadkaas ka mid ahaa Maxamed Cabdullaahi Darwiish oo hawriye hore uga soo shaqeeyay warbaahinta Soomaalida wuxuuna sheegay in loo hanjabay uuna yahay iminka baxsad lama oga halkii caga dhigan doonto dabaysha siyaasadeed ee ka dhaxaysa dawladda Soomaaliya iyo maamulka Puntland balse wali waxa socda baaqi ay dirayaan isimada iyo xukuumadda Puntland oo looga codsanayo madaxweyne Dani inuu xaaladda dejiyo oo si hoose loo dhameeyo khilaafka dawladda federaalka iyo maamulka Puntland mas'uuliyiintaas u xiranna oo xoriyadooda siiyo balse madaxweyne Dani waxba kama soo naasacada waxaana uu ku sii adkaysanayaa go'aankiisa وعبد الله بكيلة وإذن الله واتكم هاسنتين داوشدا